sida aad qormada koraba uga jeertid waxa la yiraahdaa dagaalkii kumaanan guul daraysan waxa la qoray maalinkii guddigu ay dhaheen qaadku dhibaato kuma hayo ummadda Soomaaliyeed waa daynaynaa waa dhaqankooda ha loo daayo markaasaa journalistayaashii weydiiyeen abo dhaheen Abuukar waa laga raayay maxaad samaynay annaguna waxaan ku jawaabnay nala kama rayn waa soo taaganahay qoonsan mayno dharbaaxa nooga dhacday wajiga runtii maalinkii arrintan la yiri laakiin kama naqoonsana olole horle iyo mudaharaadyo iyo weerar waxaan qaadnay cir iyo dhula waana mid keentay inaan maanta halkan taaganahay oo aan ka wada hadlayno guushii weyneed u soo yeetay Soomaalida bilaabo ololaha qaad cunay ma geeyo gabdhaha qaar baa ku fiiri in arrintaas runtii la boor geliyo annagoon xumaynayn oo aan diidayn ragga inaan dhahno war hadaad qaad cuntid walaalow waxaad sababi kartaa niman qowl lahayn niman ballan lahayn niman aragti dheer lahayn niman wiilkiisa yar u dhalay dugsiga geyn karin oo tusaale u noqon karin sababta awgeed gabdhuhu xaq bay u leeyihiin inay dhahaan sorry walaalo aniga nin qaad cunay ma geeyo mid kalan ku soo qabanaa